habeenkii xalay ahaa waxa uu ahaa mid kale oo taariikh ah gaar ahaan marka laga hadlayo arrimaha dagaalka Ukraine iyo aragtida Trump ee ku aadan in la soo gabagabeeyo colaadda 3 sano jirta ee ka taagan bariga qaaradda Yurub iyadoo kulankii aqalka cad la xiriirsanaa is-araggii Alaska oo ka mid ahaa kuwii ugu adkaa ee dhex mara madaxda dunida gaar ahaan kuwooda awoodda leh isla jeerkaana ay kaga wada hadlaan mustaqbalka dunida marka laga hadlayo colaadda hadda taagan xalay reer Yurub uma ahayn habeen u fiicnaayo waqti ay awood u yeelan kareen ee gorgortan dhaba galaan fursadihii ay lumiyeen 3 sano ee la soo dhaafay ayaana caqabad iyo cilkaanbi ku noqday kuna riixay inay madaxa u ruuxaan go'aano waaweyn oo mustaqbalkooda gufaaca ku sii deynaya saadoon gudahooda ayayna ku aqbaleen si dhaba inay u liqaan in amintu aysan joogin xilligii gorgortanka waxayna saf u galeen Trump oo muuqdo hogaamiye dunida u jabtay haddana aan fursadaha dayicin oo si toos ah uga faa'iideysanaya tabintan waxaan ku eegaynaa kulankii labada dhinac lahaa ee ka dhacay aqalka cad Zelensky oo mar kale loo muujiyay inuu yahay nin aan ka soo jeedin dalalka awoodda leh madaxdii ugu badneed ee Yurub oo qolka fadhiga aqalka cad lagu xareeyay Putin oo ugu dambeyn ku guuleystay in la qaato nabadii uu isagu doonayay kadib markii looga tanaasulay dhammaan qodobadii ay colaadu ka taagnayd Wafi Square waa mashruucii ugu weyn abid ee laga hirgeliyo xaafadda Parkland magaalada Nairobi waxa isugu jira guryo deegaan ah xarumo ganacsi iyo hoteelo five star ah waa xarunta cusub ee nolosha casriga ah iyo ganacsigu ay ku kulmaan isku marna aad keli karto wixii faahfaahinaa lambarada shaashada ka muuqda qaabkii xalay loo qaabilay madaxweynaha Ukraine iyo maamuuskii muranka dhaliyay ee ka dhacay aqalka cad hogaamiyaha dalka ay colaaduhu aafeeyeen ee Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu mar kale xalay marti ku ahaa aqalka cad ee looga taliya Mareykanka gaar ahaan qolkii sanadkan horaantiisa sida aadka u xun loogu bahdilay ee The Oval kaasoo lagu xasuusta qaabkii loola dhaqmay markii halka Trump kula kulmay loona diiday qadadii maamuuska madaxweynenimo Zelensky waa xilli hore loo sii sheegay inuu joojiyo funaanadii dagaalka ee uu doorka hore ku yimid aqalka cad waxaana laga dalbaday inuu soo qaato labis ku habboon aqalka looga taliya Mareykanka waana loo sheegay inuu ku labisto suud noociisu yahay kan madaxda si loogu arko inuu yahay mid la jaan qaadaya maamuuska madaxweyne Trump kulanku wuxuu ku bilaabmay iyadoo si weyn u shakisan yahay Zelensky wuxuu xabsi ka qabay in loo geysto bahdil labaad oo ka dhana karaamada uu huwan yahay arrimaha walaaca ku abuuray Zelensky waxa ka mid ah in kulanka ay goobjoog ka ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka iyo 10 ka tirsan saxaafadda kala duwan ee dalkaas kuwaasoo diyaar u ahaa inay soo tabiyaan wax kasta oo halkaasi ka socda Trump waxa uu doorkan u muuqday nin ka dabacsan sidii hore balse tani kama dhigna inuu yahay nin aan u diyaarsan inuu awoodiisa u muujiyo dunida iyo madaxda martida u ahaa oo ku jiray Zelensky wuxuuna u arkay inuu yahay ruux meeqaam ahaan ka hooseeya dhammaan madaxda adduunka qodobka ugu weyn ee labada dhinac miiska u saarnaa waxa uu ahaa sida xal buuxda loogu soo dabaali lahaa dagaalka Ukraine gaar ahaan in la aqbalo heshiis buuxa oo lala yeesho madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo aan dood laga furin Trump waxa uu xafiiskiisa lagu diyaariyay qariirad aad u weyn oo muujinaysa barta uu dunida kaga yaala Ukraine waa si gaar ah loo calaamadiyay meelaha uu Ruushku haysto ee laga maarmaanka ay tahay in looga tanaasulo si nabad loo helo loogana fuqa Putin Trump isagoo la hadlaya Zelensky waxa uu ku dhawaaqay in maanta la joogo xilligii xal buuxa laga gaari lahaa dagaalka wuxuu tilmaamay in dhinacyada looga baahan yahay inay qaadaan talagamooyinka laga maarmaanka gaar ahaan marka laga hadlayo in la ameeyo tanaasul buuxa oo ku wajahan arrimaha dhulka iyo ku biirista ururka gaashaanbuurta NATO oo Ukraine ay ka tanaasusho Trump wuxuu muujiyay inuu isagu yahay ruuxa ay tahay inuu go'aan ka gaaro dagaalka ka soconaya qaaradda Yurub kaasoo si weyn ugu eedeeyay hogaamiyihiisa kaga horeeyay xukunka ee Joe Biden wuxuu ku tilmaamay mid ku fashilmay inuu xal buuxa ka gaaro xiisadda oo soo taxnay tan iyo 2022 markaas oo Ruushku duulaan toos ah ku qaaday Ukraine Trump waxa uu ku eedeeyay Joe Biden inuu ahaa ruux meyd ah isla jeerkaana munaafaqad badan musuqmaasuqii ugu badnaana ka geystay gudaha Mareykanka iyo dunida wuxuuna sheegay in miisaaniyadda Mareykanka loo waaridayay magaca Ukraine si meel dhexe loogu lunsado Zelensky halay waa ka fogaaday inuu ka caraysiyo Trump madaxweynaha Ukraine oo la xasuusto sidii foosha xumeyd ee loogu bahdilay indhaha caalamka hortooda bilowgii sanadkan markii uu casuumaad ku lahaa aqalka cad wuxuu doonay xilliga inuu la murmo madaxda ugu sareysa Mareykanka oo ku soo hadal celiyo Zelensky xalay kulankii koobaad waxa uu la qaatay Trump wuxuuna soo bedelay dhammaan habdhaqankiisii hore ee ku wajahnaa dhinaca aqalka cad iyo Trump ugu horreyn waxa uu soo bedelay labiskii uu caanka ku ahaa wuxuu aqalka cad soo galay isagoo dhoolla cadeynayo oo ay ka muuqato furfurnaan aad u xooggan xataa haaska keenay isla markaana waxa uu muujiyay inuu ku faraxsan yahay inuu haba yaraatee ka soo horjeesto dhinaca Mareykanka oo uu qaadanayo doorkiisa inuu nabad yahan yahay
Zelensky waa iska ilaaliyay inuu wax muran la gala Trump wuxuu ugu roonaaday hadallada dabacsan dabeecadii iyo kakanaantii lagu yaqaanay jilaaga reer Ukraine banaanka aqalka cad ayuu uga soo tagay wuxuuna mar kale meesha ka saarayba inuu ka hadlo qodobo xasaasiyad keeni kara sida inuu gorgortan ka gala arrimaha dhulka iyuuna eedayn u jeediyo dalka Ruushka taas oo ahayd waxyaabo laga ilaalinayay dhagaha Trump inay maqlaan intii kulanka socday madaxweynaha Ukraine wuxuu dadaal u galay inuu markasta hadalka ka sugo dhinaca Trump isagoo aan xataa su'aalihii warbaahinta ku boobtay uga jawaabay qaab degan oo aad uga fiirsaday kaftankii duurxulka ahaa ee goobta ka dhacay waxaa ka mid ahaa in Zelensky uu Trump u dhiibay gal warqadi ku jirto oo xiran taas oo uu sheegay inay tahay mid ka timid xaaskiisa kuna socota xaaska Trump si kaftana waxa uu Zelensky Trump ugu yiri adiga kuguma socoto waxay u socotaa xaaskaaga halka Trump oo dhowl cadeynayana uu ku jawaabay alla ilaahay waan u baahanahay arrimaha kale ee dhacay kulanka waxa ka mid ah inuu Trump faale ka dhiibtay jaakadii madoobeed ee uu soo xirtay madaxweynaha Ukraine wuxuuna sheegay inuu aad ula dhacsan yahay halka uu Zelensky ku jawaabay inuu taas badhar ka haysto adeega Wire Nations waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga Yurub ama Canada aad ehelkaaga Afrika ku sugan si toos ah lacag ugu diri karto qiimo ku qanciya iyo degdeg siimo kala soo deg hadda Play Store ama App Store Wire Nations adeeg loo bogay lana mahadiyay kulanka labada nin waxa uu ku dhamaaday jawi aad u degan iyadoo ay soo baxayaan xoga sheegaya in isbedelkani ku yimid habdhaqanka Zelensky uu yahay mid aan u dhicin si caadi ah balse ay ka soo shaqeeyeen madaxda Yurub gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo tababar habdhowrka ku wajahan soo siiyay Zelensky ka hor inta uu kulanka soo xaadin taas oo ka dhigan madaxda reer Yurub ay si weyn u doonayeen in kulankan oo noqon mid waji gabax ku soo dhamaada si lamida kulankii labada hogaamiye dhex maray horaantii sanadkan kaas oo lagu tilmaamo kulankii ugu xumaa ee ka dhaca aqalka cad ee looga taliya Mareykanka kulankii Trump iyo madaxda reer Yurub caawa waxa uu Trump u ahayd in habeen ka duwan kulamadii kale ee uu ka talinayay aqalka cad maadaama xalay ahayd habeen ay marti u ahaayeen madaxdii ugu badnayd ee wadamada reer galbeedka iyo gaashaanbuurta NATO Trump waxa uu hadda u xusul duuban yahay inuu hantiyo bilada nabadda adduunka wuxuu xalay muujiyay sida uu yahay nin ay ka go'an tahay xal waaro oo laga gaaro colaadda haatan ka soconaysa Ukraine iyo boqor nabdeed oo caalami ah markii uu dhamaaday kulankii uu la yeeshay dhigiisa Ukraine Trump waxa uu shir aad u ballaaran la galay hogaamiyaasha ugu badnaa ee reer Yurub gaar ahaan madaxweynaha Faransiiska kan Finland ra'iisul wasaaraha Ingiriiska kan Talyaaniga hogaamiyaha Jarmalka guddoonka midowga Yurub iyo xogayaha isbahaysiga gaashaanbuurta NATO madaxdan waxa uu kala hadlay sidii loo dhameyn lahaa colaadda Yurub wuxuu ballan qaaday in damaanad qaad amni la siin doono Ukraine iyo dalalka kale ee dareemaya cabsida ay ka qabaan in Putin uu subax ku jimicsado wuxuu kooban ka siiyay shirki gobolka Alaska ay ku wada yeesheen dhigiisa Ruushka Vladimir Putin oo cadeeyay in nabad buuxda ka sido una doonayo colaadda iyo xabadda in la afjaro kulanka labada dhinac wuxuu noqday mid la isla qaatay in la bilaabo wada hadal toos ah u dhaxeeya madaxweynayaasha colaaddu ka dhexoloosan tahay ee Ukraine iyo Ruushka taas oo ay soo dhaweeyeen madaxda reer Yurub Trump waxa uu qadka telefoonka kula hadlay dhigiisa Ruushka Vladimir Putin wuxuu si cad u sheegay in dhawaan ay kulmi doonaan labada madaxweyne ee Ukraine iyo Ruushka wuxuu ka wada hadlay qaabka arrinta looga gaari lahaa xal waaro oo lagu joojiyo dagaalka dhiigga qubanayana loo soo afjaro wuxuuna sheegay inay tahay nabadda adduunka furaheeda ugu ballaaran oo aqalka cad yaallo dagaal iyo nabadna iyagu ay go'aamin karaan shirarkii ka dhacay Washington waxay muujiyeen yadiilo xooggan oo ku wajahan xal buuxa loo heli karo dagaalka waana markii koobaad ee heerkan la soo gaarsiiyay nabadda dalka Ukraine oo muddo dheer ahay mid ay dhinacyadu isku fahmi waayeen waxayna diidanaayeen in mid walba uu tanaasul ka sameeyo qodobada la isku diidan yahay reer Yurub iyo Joe Biden ayaana ahaa cidda ugu ballaaran ee si weyn ula dagaalamaysa dhinaca Ruushka laakiin Putin hadda waxa uu joogaa guushii ugu dambeysay Trumpna waxa uu isku cumaamadayaa inuu noqdo boqorka dunida ee dhinaca nabaddoonnimada si uu helo bilada nabadda adduunka oo horeyba ka sii ballansaday maadaama dhawaan uu telefoon kula hadlay dhinaca Norway madaxdeeda oo uu sheegay inuu doonayo inuu noqdo qofka sanadkan la guddoonsiiyay bilada nabadda adduunka maadaama uu qalmo oo uu doonayo inuu soo afjaro dagaalkii u dhaxeeyay Ukraine iyo Ruushka kii Hindiya iyo Pakistan una qalab qaadanayo ugu yaraan Gaza in dhinac kale iyana loo wajaho ku soo dhawow Daarul Asnaan Dental Clinic xarunta daryeelka ilkaha oo tayo sare leh war farxad leh adeegyada casriga oo ay ka mid tahay beerista ilkaha ayaa hadda diyaar ah Hindiya inaad aad uma baahnid Garowe iyo Boosaaso aad ka heli kartaa ilkaha maqan Daarul Asnaan Dental ayaa ku haya hal waaro caafimaad leh